بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا جوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجكي الرقية الشرعية ها ومرتدي وياهي ولالكي شيخ آدم إمامك مسجد إسلامي سوسايتي أوف ويلمرت إلهي سبحانه وتعالى حفظي أسو شاكيني أو كسابسن رقية أرمي هذا كسابسن qofkii u baahan wuu noqon karaa gadaal wuu noqon karaa insha Allah taala silsiladan qiimaha badan xalaqadii la soo dhaafay dhamaadkeeda waxaan sheekha weydiinay tahliisha iyo xirsiga qofka loo xiraayo كيف يعني إن قفك لو طفو أما تهليل لو طفو أما تحس له تاس أشياء ويدي لك وقت يعني ولا ما دمج أنا هذي كل ما سؤال شيخ ويدي شيخ خير الله كسيه وتحارب أنت تريش أنا قال حرسي قفك لو حرايا ما محوية هي ما هدو مبناية مش مبناية هدوس بناية محلو هدو بناية محلو ورا ما حرسي صار ما حين أنا شيء إن شاء الله خير الله كسيه جزاك الله خير دكتور كل لا شك إن يجعل ببنت هاي مسائش بارك الله فيك حرسجة أما واحد قدرست اللي هو يقعنه علماء ذكرت جملة وتفسيرا القرآن كأو لقري أو هي مالا لو قري أما القرآن هذا بيونهان اللي ويديد جملة وتفسيرا ويديد علماء ذكرتنا ويكلا سارين واحد كقر هتو واحد كقر ويهي wax sax ah oo quraan iyo adkaar yahay waxay dhahaan dib ma laha hadii la helo shuruuda soo socota shuruuda koow waxaan la xidhayo quraanka iyo adkaartaas maxay ahayd meesha lagu xidhayo inaan musqul la gelin oo meel daahir ah la aado oo qofka isagoo xidhan oo musqusha la gelin laga quraan waa kitaab quraan oo adkaar iyo xadiid inuu musqusha la gelin oo meel daahir ah la aadin labo qofkani inay qadaasna wax u qabanayso oo wax ka difaacayso inuu nasan aaminin oo iyadu wax qabanayso dadka qaar kood wuxuu kula geedaa ishayga ilaalinaysa wixii ka ilaalinaysa oo intiqaad baadil waa fasid weey waxba kama jiro bay culimadu qaar kood leeyihiin laakiin wallahu a'lam anigu waxaan ku tala bixiyaa anoo culimadu ila raajaysan tahay in la iska dhaafo laakiin masalahan culimadii waa weyneed saas ugu qaybsamay culimada waa weyn saas ugu qaybsamay waxaa ku saaray taxliisha waa biyo quraan lagu akhriyay ama shay kale oo quraan lagu akhriyay wax kale waa lagu akhrin saliid waa lagu akhrin wax lagu akhrin oo geedo maxay ahayd bahalkan la yidhaaho caleenta gobka oo maxay ahayd la tumay oo lagu akhriyay baa jirta iyadoo la cabsiin karo la bas iyadoo quraan la qoray ahoo la dhaqay abaaluga xataa caana lagu tufi karo la bas تهليش مركب قال بيه لشيء بيه عادي إن سوق هذا القرآن وقته في كلام كنت فكرتها بيه زمزم وقته في كلام عادي زريد زي شيء قفص يكون وقته في كلام بيه زعفران كرديل رب إنه وقته wax kasta oo la marsanayo ama lagu qabeysanayo ama jirka la marsado ama in la cabi karo ama la cuni karo wala tafkara wax mushkilad ma طيب ماشي mar su'aal kale iga soo dhalanayso طيب qofka markii tahliish loo tufo oo leeyahay wixii cabitaan waa galaan wixii ku qabaysa la dhaxay marka ma suuli oo kula qabaysanaa dadaas dad badan ay weydiin markaan qabaysanaa biyaha keen ku soo ma baafa ku qabaysanaa kadib biyaha banaan ku daadina hadii la sameeyay Mareykanka Yurub la jooga ma waxaas ma aqa boqosh maxaa ku qabaysanaa dhinacaas waxa ugu horreeyay su'aalooyin badan jirta hal la weydiiyay tahliishi maxaa ku sameeynaa ku qabaysaa lagu dhaxay meelaha badan musqushu laba qaybood bay qaar ka kooban tahay marna waa meel lagu qabaysto oo gooni ah oo baafka loo yaqaano meesha qabayska taabka ama lagu qabaysto iyo musqusha oo gooni ah markay saas tahay culimada ruqyada waxay leeyihiin waxa loo kala saarayaa ama fuqaha badan musqul waxa loo yaqaan qaybta toiletka lagu fadhiisto saadaradeed waxa banaanaanaysa meesha lagu qabaysanay maadaama oo meeshaas iyadii ay meel daahira tahay oo wax wasakh iyo kool quraankana meesha najaasadan baa loo ogolaynayo musqusha iyo wixii kale inay isku dhex darmadaan marka meesha taa ku qabaysan dadka dhahaan meeshaas ku qabaysan maadaama meesha wax najaasa lagu arkay midda kale iscaaj iyo qofkii inuu dib kala kulmin oo aha inuu qofkii la dhihin baaldi gooni raadiyo oo quraanka maxay ku qabaysato haday labadaaba suuroobi waayaan qofku waxa lagu la dardaarmaa culimada ruqyada kula dardaarmaa inuu ismarmariyo jirka marmarsado hadii qabays waa ismarmari kara sidoo saliida waa marmarsanayo inuu marmarsado taxliishi هذه إن شاء الله. جميل وصلنا كترون شيخ خير الله سيرون وايبا هذا مثلا سوري والله بقى بسوي فوق هذا الشيء هذا مثلا سوري مركي أو كوفرين هو كله سوري كوجرتيت مركي هجاجيني سو كله هدوب فرين هو كله واقع هذا كتر إن عن كلام وكدوين هاي بدنا حتى سؤال فقه وكل بسم الله ما ده كراميشان وكجرا كراسو هزجريسة oo qolma qaar kood waxay dhahaan suuliga marba taa waxa laga dhameysatid oo biyo raacisid
albaabka iska furtidoo kale suuli kuma jirto qol qaadi asaga jirta markaas kale waa dhihi kartaa dhinacan qabayskana waa sameyn karaa soo marka insha Allah taala qofka tahliisha waa uu ku qabaysan karaa saliid waa lagu wax walba waa lagu wax walba ama la cuno ama wax ka fadli badan ma jiro waxyaalaha saliidda zaytuunka oo kale biyaha zamzamka oo kale maadaama asalkooda baraka ay ku saartay biyaha zamzamka ma zamzam ilaa shuri bala marka wixii loo niyooday hadii lagu qabaystana ma shuri bala lagu sii daray insha Allah taala zaytuunka sidoo kale wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam nas ku sheegay waa barakaysan yahay qayb saddexaad ay jirto oo quraankan la qoraayo مثلا waxaa la sheegay kale dadka badi quraan in la qoro kadibna quraanka la dhaqo هذه اللوحة اللي قرأ ama saxan lagu dhex qoro هذا زعفران قارن خدي ku qoran caadi ku qoran مشكلة لا بس خير quraanka waa la qoraa waa la dhaqaa هذه biyahaas lagu shubaa marka خير biyahaas la خير ولا بس إن شاء الله وحدونا wax intii caafimaad darro kale ka dharanayno ma darro kale keenay arinta زعفران caafimaad booba la cabay زعفران boqolkiiba waa caafimaad علشان waxa lagu qoran sheeg waxa lagu qoray inuu say nadiif yahay qofkii xanuun u keeni karo waxa lagu qoray markuu nadiif ah wax bakteeriya meeshiisa ka dhigay xanuunka caadi okay kadibna waa caadi waa la sameeyaa la bas ما شاء الله جزاك الله خير intaas waa suuqii biyaha tahliisha oo baahnaa runtii su'aalooyin aad u badan liisu weydiin jir walaalahay weydiin jir marka insha Allah waan jawaabina kulli meesha ay ku jirto aad ilaahay yiraahdo su'aal waxa jirto idina aad soo noqoto oo qaybta koobaad ma laba qayb oo kala qaybina qaybta koobaad taariifka aan rabno soo gabagabino qofkan yaa u baahan ruqiya u baahan yaa anigu hadda Axmed isku socdo kale inaan meel tag ruqiya u baahan ma dhihi karaa mise maxaan ku garanaynaa qofka yaa waa qofka raaqiga u baahan taas aan rabnaa insha Allah taala سؤاشاسنا إن شاء الله تعالى وحنك جوابنا حلقة صوصات مرحبا يديكم دايما خير الله يدين سير جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه حلقة صوصات إن شاء الله حلقة هي أنت كوريس أفرت كوريس بدقيسة كان فائديسة ولا لها كان أسيب به خير الله يدين سير إلى درسين جزاك الله خير شيخ آدم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم آمين.